arkaya khamiis imaaday tiktok oo baati xiran oo khamiis xiran oo wajiga hurud marsanaya yaa u wacay qurux ku dhiig la u wacay that's the minute remember adiga oo futadaada yariista inta soo saara meeshan batuula kay xalay intuu live soo galay aytamay oo wuxuu baleeyay qurux ku dhigle khaniisiinta asaa tiktok keenay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barta youtube-ka aan ku leeyahay Burhan Channel. inta uu socdo barnaamijkeennana waxaad ku maqli doontaan dagaal culus oo ka dhex qarxay labada youtuber ee kala ah CK iyo qurux ku dhigle. sidoo kale Baba J ayaa waxa ka dhacay qaladkii ugu cuslaa ee ka dhaca qof ku jira social media barta TikTok-gana waxa ka bilowday muuqaalo aan waxba ka dugnayn galmo oo ay soo dhigayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool dalka. daawada haddii ay ku tahay markii kugu horeysay oo muuqaalkeena uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka like saartid aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka. ugu horeyntiina aan ku bilownay dagaal culus oo dhinaca afka ah ayaa waxa uu ka dhex qarxay labada youtuber ee kala ah CK iyo qurux ku dhigle. dagaalka ayaa waxa uu ku bilowday markii qurux ku dhigle uu Baba J u sheegay in uusan la ciyaarin dadka khaniisiinta ah. isla markiiba waxa ka soo hadlay CK oo waxa uu u sheegay in marka horeba niikadan iyo dhaqan xumada uu bilaabay qurux ku dhigle. CK ayaa bartiisa Instagram-ka waxa uu soo dhigay muuqaal uu niikinayo qurux ku dhigle kaasi oo ay ciyaar wada ciyaarayeen Baba J. haddaba waa kana CK oo ka hadlaya wixii ka dhacay social media gaar ahaan barta TikTok-ga iyo cidda bilowday. barnaamij aan leeyahay quseeya oo si u joogjoogeenay kulli aniga walaalkii waa agteeda ku yahay waxna uma qabo asaga oo dhahayo wax allaala wixii ugu jiro qaniisiina bax waa ark waa ku taageeray 100% qurux ku dhigle arinkaas in uu yiraahdo khaniis life lama ciyaarayo hal mid aan u sheegay asaga marka that's the minute remember adiga oo futadaada yariista inta soo saara meeshan lafta kugu taala inta noo soo saaray oo luxaayo niikinayo Baba J niku ku dhaamisi looda gaal that's the minute remember ariya khaniisnimada aadidi laakiin adiga inta sii jeesatay anigu jeesamaaye aad futadaada inta ku soo aadisay oo Baba J kula dheelay ku yiri looma jeedo lafta si fiican ii soo aadi aad futada ku toosisay kaamirada asad lafta kugu taalo waxaad ka siisay nig oo wuxuu ku saaray baylay bakeelo hiri dabadaad waxaad u luxday qaniis camal that's the minute remember habeenkaas miilowda adiga. dhinaca kale qurux ku dhigle ayaa isna bartiisa TikTok-ga waxa uu soo dhigay muuqaal in ka badan 2 daqiiqo soconaya. waxa uuna sheegay batuula kay xalay intuu live soo galay aytamay oo wuxuu baleeyay qurux ku dhigle khaniisiinta asaa TikTok keenay. taa cadeen looma hay laakiin qofkii ugu horeeyay intuu Austria ka tagay khaniis shukaansigiisa Finland u aaday khaniisiinta share out u sameeyay adiga way blue makeup adana bari inta dhaxda qabsatay yaa shishumisay shaashada korkeeda ku leefleeftay xabadka gelisay ku kor dhareertay a video laga haya batuula kay adoo caytintaada sii wata waxa tiri ruuxii nikiya waa khaniis qurux ku dhiglaana bilaabay okay laakiin waxa ilowday ruuxii intuu Instagram-ka iskala faliiqay diyaarad soo dagayso kale dabadana ka leersaday gaari gacanka dambana dholo tusmanatari ka sameeyay atiriisha kacsi barad camal yaa dabada kor u taagay asoo raganimo sheeganay ruuxaasna ma oo noqonaan that's the minute remember caashaqadaad weynay adoo leh dhaqankii khaniisiinta inaad khaniis dad ku caysaa waa kugu ceeb waayo mar walba waxaad koobiyeysaa oo aad xadaa fashionkii gabdhaha waayo dhowr jeer waxaan ku aragnay adoo katiinad dahab ah katiinad qalin ah wata marka ruux walba wadanku iska dhiibo uu ku dhaqan yahay. can we call you Atrisha Halawde maadaama dhaqanka dumarka leedahay X the boyfriend of blue makeup Batuula Kay.
remember. teeda kale gabadha markay guurdoon tahay waxaa lagu yaqaanaa intay saluunka tagto ayay timaha dabataa iyadoo isqurxinaysa laakiin adiga adoo nin rag ah intaad saluun aadid timaha aad dabatid yaa isku qurxinaysa in lagu aroos martaan batuula key xalay hal saca life igu caynaysay laakiin aniga hal daqiiqan dhareerkaaga keena marka dadka kala baro qurux ku dhiigla waa jamalkana burus ma karo laakiin adiga shukulaataa tahay. dhinaca kale baabajey oo ka mid ah dadka lacagaha aadka u fara badan ka sameynaya barta tiktoka ayaa waxa uu la kulmay dhaleeceen aad u fara badan. baabajey ayaa marka hore waxa uu sheegay in uu yahay aabe family leh dadka qaar uu la ciyaarayana oo uu ka mid yahay cilmi inuu ka fiirsan doono inuu mar kale la ciyaaro. gebi ahaanba waxa uu yiri waan joojiyay inaan la ciyaaro cilmi maxaa yeelay waxa igu xiran dadka familkayga ah iyo waliba asxaabteeda. sidoo kale baabajey ayaa hadalkiisa waxa uu ahaa mid ay ka muuqatay kibir iyo isla weyni. baabajey oo hadalka sii wata ayaa waxa uu yiri mar dambe lama ciyaarayo cilmi qofkii igu daawan jiray ama lacag igu siin jirana cilmi hadda aan follow hay dhaho lacagna yuusu igu siin. ilaa dhalinyaro 200 oo qof gaaraysa oo profileka tiktoka baabajey tagaysa kadibna dhahaysa aan follow isla markiina tagaya akoonka uu tiktoka ku leeyahay cilmi kuwaas oo follow gareynaya. waxa ay sheegeen in ninkan masaakiinka ah uu ku kibray wajigiisana uu ku sameyn jiray lacag aad u fara badan. baabajey ilaa ay hadda mar kale muusan ka soo hadlin dhaleeceynta ay u jeediyeen dadka ku xiran akoonadiisa kala ah tiktoka iyo waliba youtube-ka. hadalka baabajey waa kana aniga waxaan ahay aabo reer ayaan maamulaa ilaahay ka soo mas'uuliyadooda aniga ay saaran tahay marka ma doonayo reerkeyga inaan sumcadooda ku cayaaro. alxamdulilah asxaab baa ii joogto garabkeyga taagan i farxad gelinayso i wanaajinayso i xaq dhowrayso qiimahaygana taqaano intaas ugu filan asxaabteeda tiktoka. waxaa idin sheegayaa saacadan wixii ka dambeeyo aniga ma doonayo in aan la ciyaaro cilmi. ciddii wax igu siin jirtay way iska dhaafi kartaa, ciddii igu daawan jirtay way iska dhaafi kartaa, ciddii comment igu soo qori jirtay way iska dhaafi kartaa. maanta wixii ka dambeeyo aniga ma doonayo cilmi inaan la ciyaaro. fiyoorahan jecelkana waxaan ugu talagalay asxaabteeda maadaama ay hadalkayga qaateen. waxaan idinka filayaa comment qurux badan inaad isoo qortaan weliba idinkoo i taageerayo oo garabkayga taagan. ugu dambeyntiina sida aan horay in kugu sheegay waxaa tiktoka maalmihii la soo dhaafay ku soo biiray dhalinyaro aad u yaryar kuwaasi oo sameynaya hore ayay ahayd markii sidaanoo kale wiil uu gabar ka duubay muuqaal isaga oo gadaal uga dhegdhegaya. laakiin tii ugu darneed ayaa waxa ay dhacday habeen hore. muuqaalkaas ayaa waxaa daawatay ku dhowaad 3 milyan oo qof. sababta ugu weyn uu waxaas u sameynaya ayaa ah sida uu ku heli lahaa view caana ku noqon lahaa. waalidiintii labadan shakhsi dhalay oo kala ah wiilka iyo gabadha iyagana meesa ka hadlin oo waxaa laga yaabaaba in uusan muuqaalkan uusan gaarin maxaa yeelay barta tiktoka waalidiinta qaar ma isticmaalaan xitaa kuwa ayaan isticmaalin facebooka iyo waliba youtube-ka. horey ayaan idinkugu sheegay in tiktoka maalmahan ay ka socoto dhaqan xumo tii ugu weyneed. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii gaarka ah ee aan uga hadlaynay dhacdooyinkii 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay Soomaaliya. daawada haddii ay kuu tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena uu soo gaaro waxaan ka codsanayaa in aad marka hore muuqaalka like saartid sidoo kalena aad ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena youtube-ka. waxaa inii soo diyaariyay anigoo Burhaan Cali ah. Burhaan Channel-na waa ka daawanayseen. mahadsanidin.